أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله وعلى السلام يا وين سود وين ما شاء الله سود والله ardada commentiga qurux badan ii soo bixi wala aad baad mahadsantiin walaalahay marka caawa insha Allah casharkeena sentence-kan casharka waxaan rabaa inaan maxaa raadahay in qaybta hoose aan ka soo dhisaa insha Allah qaybahan waxaan rabaa inaad barataan waxa weeyaan guriga hoos baan ka dhisaynaa insha Allah si aan hore u socono haddii la yiraahdo marka sentence waa a sentence is a group of words that tells or asks something. Sentence waa a group of words erayo oo group oo erayo ah that tells kaasoo sheegaya or ama asks warsanaya something. macnaha sentence-ka lagu sheega waa maxay sentence-ka either waxbuu warsanayaa macnaha ama waxbuu sheegayaa ma garatay marka wax warsanaysid ma fahmino oo wax sheegaysid waxaa la rabaa inuu noqdo in wax oo fahmayso completely oo aan macnaha oo aanan wax ka suganayna ama waxaan ka wadaa it stands for complete thoughts that means waxa markaan ku dhaho si fiican waxa u fahmaysid maxaan ka wadaa example the class went to the park that means you know glass wax way maxay raada iskoolka qolol soo malaha glass hal glass kamid ah hal glass hal qol kalkaas qol kamid ardada ah ayaa la wadaa the class went to the park that means glasskaas qolkaasi iskoolka ahaa wuxuu aaday park u aaday park haddaan ku dhaho waxa dareemis waxa weeye sentence buuxa weeyaan oo uma baahna inaad macnaha wax mugdi kaaga jiro ma wax clear oo aad fahmayso waa ma garatay laakiin haddaan ku dhaho near the tree geedka agtiisa ama geedka u dhow haddaan ku dhaho hadal baa iga suganaysaa geedka u dhow war buuxa ma aha waxbaa ka maqan waa inaan dhamaystiraa sooma kaa sentence ma aha kaasaa raba inaan ku fahamsiiyo Abdi hit the ball Abdi baloonigu buu jogsi ama wuxuu ku dhiftay daamis ama uu haraantii ama gacanta ku dhiftay baloonigu wuxuu ku dhiftay Abdi daamis baloonigu yaa hit garay yaa dhiftay wax ku dhiftay Abdi waa marka maxaa dareemaysaa war buuxa weeyaan baloonigu yaa haraantii ama wax ku dhiftay waa Abdi weeyaan laakiin haddaan ku dhaho 10 children 10 caruurood ama ciyaal haddaan ku dhaho hadal baad iga sugaysaa 10 caruurood maxay ku wadaa wax ma ku dhacay wara iga suganaysaa dhigta ku taagan 10 caruur what island 10 caruur maxaa ka wadaa daa sentence ma aha sentence ma hadalkaasaan kuu sheegaya Abdi aan cali aan ku dhahay shibaan kaa dhahay haye Abdi cali haye wara iga suganaysaa kaa sentence ma aha marka sentence waxaa la wax markii lagu dhaho oo buuxo oo aad dareemayso ka soo qaad haddaan ku dhaho stop waa dareemaysa hadal igama suganayso waad istaagaysaa waa war buuxa weeyaan ma garatay marka saasoo kale haddaa stand up ku dhaho kale waa war amar weeyaan laakiin waa war buuxa weeyaan ma garatay marka sentence waxaa la dhahaa wax aad fahmayso inuu buuxo ama ha yaraado ama ha weyn aad ogtahay in aad uu buuxo aadan hadalka uu ku dhan yahay aan hadalka suganaynin that's called sentence that's a full thought and that's called sentence insha Allah ma kasta walaalahay marka waxaan rabaa inta waa idin soo akhrinay oo ka soconayn wadanta alle waxa weeyaan qaybo badan ayaan isku soo daray waxaan rabaa inaan idin socodsiiyo aan gudubno aan tareenka si fiican u korno sababtoo waa dhaqaaqi la'anahay hoos baan ku soo noqonay marka I want us to move ma fahmino insha Allah marka a sentence is a group of words that tells or asks something it stands for complete thought means wuxuu istaagnaan karaa complete wax buuxa weeyaan ma garata insha Allah example the class went to the park near the tree Abdi hit the ball 10 children Abdi and Ali insha Allah ka socono insha Allah walaalahay qaybtan waxaan ka barayaa asking sentence yeah sentence oo wax weydiinaya waa maxay waa question waxa lagu warsanay waa su'aal always nigada horay gadaashta waxa ku arkay halkan waxa ku arkaysaa calaamad su'aal inuu calaamad su'aal meesha ku taal insha Allah so an asking sentence-ga uu wax warsanaya is wuxuu yahay a group of words erayo group ah that asks or warsanaya a question su'aal buu weydiinayaa that's called either asking sentence or question sentence labaduba dhigi kartaa insha Allah ka aan maxaa iraahdaa oo aan question ahayn oo exclamation wax ajaa'ib aanin ama amar aan ahayn sentence-kiis muxuu kala baxaa amar wuxuu leeyahay wax la yaab ah
waxa weeyaan negative diidmo wuxuu leeyahay su-aal weydiiso kan waa su-aasha kan aanan intaas dhanba aana ku jirin waxaa la statement oo wax iska caadi ah ama positive you can also say positive oo iska caadi ma fahmino insha allah marka example waxa weeye is this your brother is this your brother kani walaalkaa miya is this your brother kani walaalkaa miya where does she live xagee bay ku nooshahay xagee bay degan tahay xagee bay ku nooshahay marka kulli maxaad arkaysaa calaam su-aal inay saaran tahay ma garat marka kaso waad ka jawaabaysaa waa saas oo kale su-aal baa lagu weydiiyey waad ka jawaabaysaa how was school today maanta iskoolka siduu ahaa maanta iskoolka how was aniga iskoolka ma aadin marka adaan kaa wareysane how was school today ama cunugaaga iskoolka aad dirto markuu kasoo noqda how was school today maanta iskoolka suu ahaa iskoolka that means iga akhbaar sii right do you want a snack ma u baahan tahay do you want a snack waxaa lahaa qadada iyo raashinka intuu dhexeeyo marka gaajo ku qabto wax yar afka qof gashanay it's called a snack insha allah I don't know Soomaali ku xasuusto so it's called a snack where are the apples abaladii aaway mee insha allah marka senteniska halkaan maxaan kaa bar inuu yahay su-aal inuu ku warsanayo kii horena maxaan kusoo baray in uu yahay maxaa irahdaa oo uu diidmo yahay kii kasii horeyn maxaan kusoo baray in uu maxaa irahdaa aan ku baray inuu sentence buuxo muxuu yahay aan kusoo baray insha allah walaalahay qaybahan aan hadda idin soo dhigay maanta is real ayaanta casharadan ku jirna cashara aad muhiim waaye sababta rajada aan leen waxaan rabaa inaan kor u soconno inaan hore u soconno insha allah oo aan waxyaalaha muhiimka dhan idin dhammeey insha allah marka isku daya inaa akhrisaan inaa ku celcelisaan sababta guriga haddaan hoos laga dhisin kor kama dhismaayo so aynu meel gaarno hoosaan ka dhaqaaqi la'nahay marka intiina waxoogaa bilowga ku celceliya try inaa fahamtaan qaybihiisa insha allah ma garateen marka exclaiming sentence waa maxay waa a sentence that shows strong feelings or surprise is called an exclamation use an exclamation point at the end of these sentences waxa waaye a sentence that shows kutusaya strong feeling macnaha dareen oo macnaha adag ah kutusaya or ama surprise wax oo aadan filaynin surprise kugu noqda kutusaya iskool waxaa la exclamation waxaadan filaynin iyo wax surprise kugu noqda ma fahmino ama strong feeling wax oo macnaha oo strong oo adag oo dareen oo culus ah dareen oo adag ma aragtay it's called exclamation mark I'm sure of Somali waan leenahay annaga laakiin I don't remember walaalahay and marka senteniska aad qorto gadaashiis waxaad ku qoraysaa this calaamada halkaa ku taal mujeedaa daas ayaa la exclamation this the calaama is called exclamation ma fahmino senteniska markaad qorto halkaasaad ku dhegeysa waxaad ku ogaanaysaa inuu yahay sentence hadduu su-aal yahay maxaa ku ogaanaysaa waxaad ku ogaa senteniska hadduu su-aal yahay maxaa ku garanaysaa calaam su-aal baa gadaaltaan senteniska hadduu diidmaya maxaa ku ogaa ereyga diidmada not ama ayaa ku dhex jirta ayaa diidaysaa compositivena waxaad arkaysaa waxa weeye waxba ma laha waxa mal su-aal senteniska boosig su-aal kuma weydiinayo maxaa iraa diidmo ma aha wax surprise ma aha amar ma aha sentence oo waxaa jira amar ahaa jiro oon ku amray kan suubi kan yeelo ma garatay marka waa carabi waa jiraa ficil amar I remember ficil amar laakiin exclamation I don't know I don't remember that one marka insha allah example kan aragno what a lovely day it is what a lovely day it is maxaa dareemaysaa maanta ina strong dareemayo feeling kan dareemaya wax ina maalinta tahay maalin aad u fiican tahay what a lovely day it is weli markaa dhees codkaaga maarta waa inuu has to be macnaha dareen uu ku jira feeling oo strong what a lovely day macnaha inuu ku jiro fahmo feeling dareen oo inuu ku jiro weeyaan ma garat insha markaa hadlaysid laakiin haddaan ku what a lovely day no what a lovely day you gotta be say like si fiican u dhahay inkasta
the carpet is moving haddaan ku dhaho the carpet is moving haddaan ku dhaho miine maxay dhaha carpetka waxaa la dhahaa geedaha dhulkaan dhigana maarka wuu dhaqaaqaya haddaan ku dhaho that means wow macnaa waxa weeyaan wax feeling strong way maarta waad cabsanaysaa xataa maxay tahay carpet kaligiis dhaqaaqaya makastaan carpet waxaa la geedaha dhulkaan dhigana maaragta maxaa yidhahdaa dhulka dhigana Somali baan ii gooy wallahi bilahi sometimes I feel embarrassed of Somali ii gooynay marka waxaan ka dhahay waxaa lahaa kaarbidaan dhul Soomaali kaarbid leen lahaa umalaynaa insha allah maxaa kaloo taloo dhihi jira geedaha dhulka la dhigto ayaa mise shumac maa lahaa no shumac something else I believe anyway anaa ku lahaa geedaha dhulka la dhigto kaarbidka dhaqaaqaya haddaan ku dhaho kaarbid dhaqaaqaya macajin baa iskaga jira marka wax surprise wax la yaab what the hell wax feel strong ku jira kaarbid dhaqaaqaya what maxaan ku hadlay saasoo kale ma garta so taas wax la yaab la wey kaarbidka dhaqaaqaya wax la yaab la weyaan marka calaamadan maxaa yidhahdaa exclamation waa inaa halkaan saartaa haddaan ku dhaho my pet snake has escaped that means maski aan xanaanaysanayo wuu fakada haddaan ku dhaho meesha waad ka dhaqaaqaysaa so taasoo kale ma wax la yaab la weeyaan maski wuu fakaday haddaan ku dhaho meelaha fiifiirinaysa looduma kuusoo socdaa so wax cabsi weeyaan ma garatay marka saasoo kale iskool exclamation aa loo isticmaalaa erayadaasoo kale ma garatay insha allah marka intaasaa rab inaan kaa barato haddii la yiraahdo caawa maxaa yidhahdaa waxaa igu kaa dhiman one more igu kaa dhiman oo ah amarka senteniska amarka laakiin waqti uma hayo insha allah laakiin marka la idin dhigo insha allah marka intaas haddaa barataan sentenis qaybahiisa hoos waa iska xirta waxa la kuu dhinaanaya qayb waxaa kuu dhinaanaya senteniska inuu yahay maxaa idhahdaa hadda laakiin waa idin soo dhigay senteniska inuu buuxeen kale ada calaa kulli xaal qaybahan hoose oo rabi inaad idin baro على كل hal xab baa idin dhiman insha allah kadibna waan ka dhaqaaqayna oo ka move garayna insha allah walaalahay sida halkan u aragtaan part of the body aa ujeedaan insha allah qorkii oo dhan aa halkan ka aragtaan meel walba number aa ku qoran soo muujeeda marka numberkaa ku qoran numberada fiiriya hoostiisa waxaa ku qoran ingiriiska ku qor waan idin akhrinayaa marka maadaama aad u jeedaan aanan wana inaan micneeyo insha allah waxaa weeye waa akhrinayaa si fiican idinkugu akhrinayaa marka qof walba luqadda haddaad ingiriis haddaad talyaani ku talyaanigaad ku qor haddaad soomaaligaad ku qor haddaad carabigaad ku qor insha allah kolley waa dareemaysaa anigu waa kuu micneeya waa kuu akhrinayaa wuxuu yahayna masawirkiisa waa u jeedaan insha allah soomaali inaan ku qoro looma baahna insha allah Okay, index finger, middle finger, ring finger, little finger. walaalayaal waxaa idin weydiinayaa ma garanaysan ama ma xasuusatiin faryarey habarteed fardhaxaad murdiso suulgambar reer muqdisho saas ma taqaaniin mise waxa idinku waa lidinkaga horreeya waxaasayd ma garanaysaan على كل حال this was index finger وحنيه جرني مردسو middle finger ring finger little finger palm the head hair part forehead sideburn ear cheek nose nostril jaw, beard, mustache, tongue, tooth, lip. Okay, walaalahay, I think hadday marka akhrin eedu ku ekaa qaybtaas. Marka halkan forearm, this called a forearm, I think elbow inuu kaan jeclaha insha allah. Forearm. Okay, let's just lead quick. Face, mouth, chin, neck, shoulder, arm, upper arm, elbow. Forearm is called armpit, back, chest. It's called waist, abdomen, buttocks. Sometimes buttocks no ada, buttocks no asku mid. Buttocks. Dhib ma laha.
isku mid weeyaan hip waa soo akhrina hip leg thigh knee calf waan soo akhrina insha allah and the hand waxaan ka soo akhrina wrist knuckle halkan waa fingernail this called thumb this called index finger fartaan murdiso dhahan index finger middle finger so what do we call Somali we call hold on what it was fariyare habarteed fardhaxaad murdiso suulka barsas mayno yeah okay murdiso this one murdiso this middle finger habarteed ring finger no so sorry ring finger was what the hell I keep forgetting what logo على كل حال anyway index finger middle finger ring finger little finger palm I don't think you guys inaa wax akhrinayo dhinaka dadkiina qaarkeed ma kasaysiina u malaynaya dadkii gadaalka dhashtana I don't think inay kasaayaan but على كل حال this called index finger middle finger ring finger little finger and this palm okay inshallah what else let's go read here the head حوام كسو أخرني hair part forehead sideburn ear cheek nose nostril jaw beard call a beard this is called a mustache this is called tongue tooth lip Number D is the eye. Number 44 is eyebrow. This is called eyelid. Eyelashes. Iris. Pupil. People ma, yeah guys, pupil. The foot, here's the foot called ankle, you see, ereyga ankle iyo ankle way isku dhow yihiin ankle waa adeerka ankle wuxuu noqonayaa maxaa yidhahdaa qobka right ankle heel in step ball big toe toe little toe toenail marka walaalahay khayr baa idinku ogaa marka magac isku raadsada meel ku qorto insha Allah walaalahay khayr baa idinku ogaa insha Allah caafimaad salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh